ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو معلم محمد إبراهيم halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadeen imtixaanaha inoo ah aan ku baranaynay advanced excelka maanta waxaan isla baranaynaa cashar loo yaqaano name range wax saasa ma aha waa maxay waxa waaye waa shortcut mataqaana loo isticmaalo haddana xaggan waxaa iga furan aniga 1 2 3 ilaa waxaa iga furan 7 sheet ayaa iga furan tusaale ahaan haddar meeshaan aan jooga ku qoran tahay name definition salary department ay ku qoran tahay hadda waxaan joogaa meesha ay ku qoran tahay maxamed oo kale halkaa wuxuu iga soo qabanayaa name mataqaan name boxka D5 inaa joogo markan waxaa leeyahay select ayaa leeyahay waa koobinayaa waxaa leeyahay select ayaa leeyahay highlight ayaa gelinaya dhihi lahaa marka highlight geliyo inta waxaa loo yaqaanaa D5 marka D5ka intaasaa waxaa rabaa inaan magac u bixiyo mataqaana inaan magac u bixiyo oo kale marka meesha D5 ku qoran tahay waa ka masaxayaa waxaa u bixinayaa magac oo kale tusaale ahaan name baa u bixinayaa magacayga u bixin kara magaca u bixin waxa rabta ayaa ku qori karta marka waxaa dhahayaa name 1 dan waxaa leeyahay enter haddeer mataqaana marka faa'iido maxay leedahay haddeer sheetkan joogo maxay waa sheet 2 lacalla haddii aad meel kale joogto sheet 4 aad tagto oo kale saa aan ugu laabto mataqaana D4 way adag tahay waqti ayay iga qaadanaysaa inaan raadiyo marka halkana taabanaya focuska name 1 baa ku dhufanaya toos meeshii ayuu ii keenaya qaab shortkada ayuu ku siinaya marka halka qaabka faa'iido ayuu leedahay saa waa loo sameeyaa waxaa la dhahaa name range marka haddaan rabo inaan mataqaana namekan u bixiyo waxa u bixiyey muxuu ahaa name 1 ayaa u bixiyey haddaan mataqaana rabo rename name range name waa maxay inaan magacii bedelo oo name 1 kan ka bedelo oo u bixiyo wax kale waxaan tagayaa meeshan ay ku qoran tahay formula ayaa ku dhufanaya waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay name manager marka name manager ku dhufto waxa ku dhufanaya meeshan ay ku qoran tahay editing marka meesha ay ku qoran tahay editing ku dhufto waa taa meesha ay ku qoran tahay name marka name 1 bay ahayd marka waxa uu bixinaya tusaale ahaan name 2 oo kale ayaa leeyahay name 2 oo kale dan waxaa leeyahay okay dan waxaa leeyahay close haddar waxaa la dhahaa mataqaanaa name 2 meeshii hadda ku dhufto meesha boxka ku dhufto waa ka name 2 ayaa leeyahay halkan ay toos ii keenayaan casharkeena saddexaad qaybteena muxuu ahaa qaybta saddexaad waxay noqonaysaa deleting name range haddaan rabo inaan iska dhiid gareeyo oo aan meesha aan ka dhiid gareeyo mataqaanaa muxuu ahaa mataqaana boxka sida u delete gareynayaa waxaa leeyahay meeshan ay ku qoran tahay tagaya isla meeshii muxuu ahaa name manager baa ku dhufanayaa markaa formula tagto name manager baa ku dhufanaysaa dan waxaa ku dhufanaysaa delete halkaas ayaa ka delete gareynaysaa wuxuu ku leeyahay are you sure you want to delete the name 1 name 2 la name 2 ma hubta inaad delete gareynayso yes baa leeyahay soo soo dir waa baxaysa saas ayaa loo dhigtaa qaab kale waa jirta iyadana oo long distance oo waddo dheer u mariso hadda tusaale ahaan hadda halkan selected aho highlightkan gashto waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay formula waxaan tagayaa meesha ay ku qoran tahay muxuu ahaa name manager baan dhufanayaa dan waxaa ku dhufanaya new ayaa tagayaa dan waa kaa ii soo baxaysaa laakiin halkan waxaa rabaa inaa manager baa ka dhigay waxaa u baahan inay noqoto destination baa leeyahay dan waxaa leeyahay okay ayaa leeyahay dan waxaa leeyahay close haddaad tago sheet 7 oo kale haddaan tago waxaa leeyahay halkaas ayaa ku dhufanayaa destination ayaa leeyahay toos ayay meesha ii keenaysaa qaabkan waa longish waa distance waa loo samaystaa haddaa aan rabo haddeer waxaan sameeyey name destination salary waxay noqonaysaa inaan xabad u sameeyo haddaan rabo inaan group ahaan u sameeyo oo mataqaanaa markaan halka ku dhufto inay isoo baxdo name destination salary department inay isoo baxo muxuu haddaan rabo group ahaan inaan sameeyo waxaa la sameynaya iyadana highlight ayaan gelinayaa daatada dhan ayaa waxaa gelinaya highlight haddaba qayb baa gelinaya laakiin iyadoo dhan waxaa gelinaya highlight dan waxaa tagaya create from selection marka create from selection ku dhufto marka wuxuu ku leeyahay waxaa rabtaa top row miyaa rabtaa or left column rabtaa marka waxaa leeyahay top row ayaa rabaa oo qaybtan kore inay soo baxda name destination salary dan waxaa leeyahay okay dan hadda aan tago mataqaanaa sheet 6 oo kale haddaad joogto halkan baa ku dhufanaysaa taa rabtaa ku dhufanaysaa ma name baa salary rabtaa toos bii keenaya name halkan ay rabaa leedahay haddaad ku dhufto boxki waa kan kusinaya department destination muxuu ahaa laba destination waa markaas haasa name salary marka taa u baahan tahay ayaad ku dhufsanaysaa oo tegaysaa hadaad ku dhufto salary oo kale
taasuu toos ii keenaya. Marka casharka inaha ayuu ku saabsanaa. casharkan halka ayuu kusoo koobay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. I'm gonna show you how great I am. Great I am. Great I am. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. I'm gonna show you how great I am.